arrintaas oo arkay oo ka hadlay oo dhowr gobol ah kii saddexaadna hadda aanu anagu ka hadlayno oo arkay madaxweynaha waxaan leeyahay arlo barwaaqeeyay barwaaqaha hadduu cid haatan barwaaqeeyay anagu annaan ogeyn way iska dhici kadhaa waa magaalo waa weyn tahay haddii rag haatan la barwaaqeeyay ama meel la barwaaqeeyay jirto anagu waxa dhacaam loo arkana ma ogin waxaanu indhahayaga saarana ma ogin madaxweynaha Puntland waa la doortay oran mayno anagu madaxweyne ma aha waa la doortay baarlamaanka doortay ummadaana soo dooratay mas'uuliyadana ummadaas u dhiibtay ku aamintay wuxuu yimi Boosaaso sida rag iga horeeyay ku hadlay wuxuu diiday in la hadlo ilaa ayamika waxaan doonaynaa inuu gale soo fariisto oo kala hadlo dadka maalin walba garab dhiibinta ugu hayo shakhsiyaad Boosaaso haddii tobanna yiraahdo madaxweynuhu waa fiican yahay dalkuna waa fiican yahay dadkii dalka deganaa oo deegaanka ahaana aanay lahayn waxa wax kama jiraanin waxa ila tahay inaan wax ka soconaya jirin macnana oolo intaasaan anigu hadalkayga ku soo gaabin hayaa waxaan leeyahay aad iyo aad baan idin salaamayaa baarlamaanka aad iyo aad dadka soo dhaweeyay baan u soo dhaweynaynaa madaxweynaha anaga cid inagama xigto ragga uun leh madaxweynaha saatan iyo saatan kelmadaasaan ku noqonayaa maxaa noo diiday anagu inaanu madaxweynaha dooranay waa madaxweynaha iyaga waana fiican yahay yaa noo diiday cid noo diidaysa ma jirto laakiin waxaanu ku diidaynaa asaga oo ah la xisaabtan la'aanta annaguna aanu aragno ragna uu indhaha iska tuurayo ninkii indhalana waa la arag ninkii indhalena waa la aalamiin sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam ajma'in saxaafadeeda kan waxaanu u qabanay ama loo qabtay mahadcelin kow in loo mahadceliyo baarlamaanka Puntland oo aad iyo aad ula xisaabtamay madaxweynaha marka aad baad u mahadsantihiin waana idinku taageeraynaa hawshiina inaa meesha ka sii wadataan ayaanu rajaynaynaa taas waa qodobka labaad dad badan baa waxay yiraahdeen reer bariga waa shiiqayo madaxweynaha waxa loo geeyay waa la kala tagayo lama kala tagayn intaas oo beelood baan hadda ku fadhinaa mana kala tagayno mana kala soconayno arinteeduna maanta waa taagantay arintii reer bari maanta waa taagantahay wax badan baan saburaynay laakiin maanta saburku waa naga dhamaaday maalin walba madaxweyne yimaadaan dhulku xaraashaya sawaxad garatama marka taas qolada madaxweynaha u geeyay la kala tagiyo la shiiqiyo waxba maaragtay ma jiraan been bay idin sheegeen been bayna ku sheegayaan taasna waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxaan u naseexaynayaa Cabdiraxmaan Faroole oo maanta ayaama dhaweyd saxaafada ka hadlayay oo yiri kitaabkii meel baan soo dhigtay dastuurkii baan halka ku dhaqmay horta ilaahay ha u toobadkeen baan leenahay Cabdiraxmaan Faroole hadii dastuur iyo kitaabka ilaahay aad isbarbar dhigto qofku diintu ka baxaya waa gaaloobaya adigu laakiin tooba ku furan ilaahayna u toobad keento ilaahay u noqoto subxaanahu caasimadda Puntland oo garoowe waa laga fiirsanaya sababtoo caasimadani ma aha reer male waa caasimadii Puntland intaasoo gobol bay caasimad u tahay maanta se waxay noqotay caasimad qoys leeyahay reer leeyahay marka taana waxay keenaysaa inaan ka fiirsano meeshii la geyn lahaa caasimadda Puntland oo maaragtay lagu dawladdu ay ku socon lahayd ku shaqayn lahayd maxaa yeelay waxaanu aragnaa in hanjabaad iyo qoys inuu iska leeyahay oo baarlamaankii la handadayo oo dadkii maaragtay la handadayo ayaanu aragnaa marka waxaan leenahay waxaasna wax naga soconaya maaha gobolkan bari waa tashaday maaha dadka beenta sheegay la wareegaya khalaas ayaamay wadwadeen reer bari kala yaace been bay sheegayaan waana ka dhowr iyo 10 beelood baan ku fadhinaa maanta waanu ku hadlaynaa oo afkayagii taagan yahay soo waxaad gartaa marka waxaan leenahay wax soconaya ma jiraan marka waxaan ugu naseexaynayaa baarlamaan marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ikhtiyaarta iyo cuqaasha gobolka bari ee shirkan balaaran ee saxaafeedkaas ugu timi iyagoo ka hadlaya arrimaha mastiriga ah ee Puntland jifi ma leh reer ma leh qola ma leh dadka Puntland baa leh baarlamaanka Puntland ee sharafta leh ee shalay sida sharafta leh hal nin u hadlay warintiina kaleetana waxa la ka rabaa
wixii ladii igmaday ama ladii doortay ma inaan lacag qaataan kaliya maahay waxay dalkan iyo dadkan Puntland wixii dib ku ah inaad ka qabataan ka hadashaan dowladda la xisaabtantaan xulufaysi iyo gurubaysiga aad wadaan inaad joojisaan dalkan dadkan u dhaarateen ninkii shala hadlay iyo baarlamaanka dhammaanna waxaan leenahay waxaad qabateen shaqo aad iyo aad iyo aad iyo aad u wanaagsan waa in maad celinaynaa mar koowaad mar labaad mar saddexaad iyo mar boqolaad intaa markaan taa ka gudbo aan u soo noqdo gobolka bari anu waxaan Cismaan Axmed Wadaan gobolka bari dadka iskala amuurka baan ka midna Saciid Cabdullaahi Dani waa madaxweyne Puntland Ismaan Maxamuud kuma matalo in uu ka shaqeeyo in bari dumiyo gobolka taariso waxaan qaadan karnaa haddii ciid luqluq ku jiday ama darbiga wax laga xamaanayay halka reer bari baa fadhiya annaga reer bari kamida beelaha ugu ballaaran baan nahay horumarka dalkaanu baan hormuud ka nahay dekadii waa gadan tahay 3 sano baad dekada bibi wal xiran tahay maalintu Saciid baa ka soo dagan wuxuu ku hadlay dadku markaanti way madaxweynaha dhageysto oo waxa ugu noqdo maalintu laha dekadu xiraan mayso wuxuu yiri xaraga la xiri maayo Muuse Ali Jaamac saxaafada ka hadlo shirjaad bari ka hadlo xiran Cabdullaahi Dani hadda goodi iyo hanjabad dadka lagu haya waxaanu taa qaadan karnaa waxaanu asmacaynana ma waxaanu qabiilaha ku difaacaynana ma ninka qabiilka ee qarra jooga bari baa laga xukumaa tan boosa laga xukumaa bari waxa laga xukumaa boosaas dan leemanihin dadka dan leeyda madaxweyne waxa beenta ku sheegayo kullu goynayo waa dadka dan leeyda way dan leeyda waa dadka ku yimaada waxaan jirin ku sheega lacagta gabanka qaata ninka agaasimo laga dhigo kii wasiir laga dhigo waa soo ordaya tobanka jifidiisa la beenta sheegayso ma kaxaysanaya nimanka laga fadhiya khayraadka gobolka bari way shir baa maanta magaalada ka socda inta loo qof reer bari kuma jiro yaan been lagu sheegay yaan lagu lugoyn waxaan taa ku soo ku daraya magaala garow la yiraahdo caasimada Puntland way inta jeer oo dulmi ka dhacayna walaad wala xisaab reerka deegaan raabti baan yihiin saqiir wa kabiir waxay ka midaysan yihiin hadduu qof hadlo in lagu uleeyo oo lagu dhibaateeyo وقال بالك تكتب قرنيسان باقي فرر جوج انت كنترول lagu jibi gacmaha lagu jibi oo lagu uleey hadda markii baarlamaanka hadlay shalay garooma la gurtay war waxaas waa mustaxiil waa ceeb haddeen cusubada wadaagno oo aynu wada ileenahay ma aha inuu maalin kasta faror ku gudbiyo yiraahdo geedka waxaan fadhiyaa timirta geedka timirta waa idin fadhiyaa annagu man reer bari baan nahay geedka timirta waxa lagu fadhiyo garanaya dadkii midug jaan loo fariisaa midug midanaga gudbaaya ana noo fariisaa timirta annaga timirta noo fariisto oo nimantii loo fariisaa manihin reer bari baan leeyahay Talyaani Ingiriis baan qabsan waayay 10 wiil oo garow joogta oo dadka inay isku didar rabta oo fidmada wada oo shalay waxay ka shaqeynayaan cid kasta marxaati ka tahay oo waxa way daarta barakaad waxa qoosha marxaati ka tahay daarta barakaad boosaas ku taal 2 sano xanimnay garow ha loo raro hay'adii baa la raray hadda maanta Saciidna wadadii waaya tiimkii baaya waxa weeye dalka iyo dadku wuxuu u baahan in la badbaadiyo baarlamaanka waxa leenahay reer bari waxa idinka sugayaan haddaad waxa dalka ka dhacay wax ka qabataan way soo dhaweynayaan haddaad ka dhumataa dhudhuleysaan isla noo imaan maayeen noo imaan meesaan hadda idin sheegay nin kasta wuxuu baarlamaan ku matala codka ku matala dadka beeshiisa iyo deegaanku degan yahay haddaan Puntland la wadaagin oo caasimadu is dadka dhaxayn oo nin kasta waxa moodaa saxaafadda marka laga hadlayo in qofka ceebta sheega oo dadka caaya inuu amaanan yahay dadka aamusan xishoon ay gabanayaan war wax xishoonaynaa cidna naga maxniyo badna nigana awood badna nagama qabiil ballara inaan media saxaafadda nimaano waxaan u kalifay 9 bilood baan waxaan daawanaynay wiilal xunxuna oo dalka gadaya oo iibinaya oo madaxweyne jeebka ugu jiro waxaan qoraynaa maaha waa wax cadaan weey midda kale to waxaan kale to idin sheegaya markay nagu isqabanno oo Puntland xil isqabato oo madaxweynaha in la saxo dadka meelaha la taagan federaal baa soo diray farmaajo la hadlay war farmaajo duu imaan la wadeeri lahayn hadda idin sheegaya haddii khayriye farmaajo imaan lahayd Puntland oo ay ka hadlaayeen masiirka dadka ka hadlaayeen waxa maqlay si loo soo dhaweeyay ummadda uma taageerinaysa farmaajo aan taageerin waa soo dhaweynay waa u sabcinay banaa uga soo baxnay dulmiga Puntland lagu wadana uu daawanay isaga madaxweyne farmaajo daawanay
marka idinku ha nagu celcelinina niman baa shabaaba kuwaa daacisha kuwaa bahalkiya daacish ma nihin shabaabna ma nihin suuguusha balad ma nihin cuqaashana yaan la caayin nimanka gobolka kuu joogay nimanka wasiirada aan gobolka matelin ku urinaya saxaafadda geynayana ma matalan bari dadkii matalaya halakana fadhiyaan waa cuqaasha hadashay intaasu hadday fariin kugu filnaa wadana wixii baarlamaanka Puntland ka soo baxa oo ay dal ka qabtaan baan sugaynaa annagu wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay ba mahadle allah awood lo meesha keenay suu keenay ba mahad iska leh waxaan jeclahay inaan u mahad celino awalan baarlamaanka Puntland gartay ogaaday dhibaha jira meesha ay ka bilaabeen abaarta ay ka bilaabeen oo shalay ahayd aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay waa mahadsantihiin halkaana ka wada meel fiican bad ka haanadeysaan halka ka wada baan leenahay taas waa tii baarlamaanka tan kale waxay tahay madaxweynuhu baarlamaanka warqad buu ka hor qeyr akhriyay uu leeyahay meeshii bari la oran jiray waa soo aslaaxay waa soo hagaajiyay dhinac abni dhinac mashaariiceed dhinac muxuu ahay dadka oo aan la kulmay dhalinyaradan la kulmay aqoon-yahankan la kulmay culimada la kulmay odayaashan la kulmay mashaariic baan keenay aslaax baan ka soo dhigay taas waxa weeye waxa la yiri ninba wuxuu aabihiis wuxuu uga soo diray aakhiro telefoon uga soo diray wuxuu yiri aabe waxa adduunkii waxa ka dhacay saddex arrimood oo fiican baa ka dhacay mid waxay tahay Falastiin xornimo waa qaadatay mid kalena waxay tahay dawladihii golofka ahaa waxa uu dhexmaray webiyo biyo aba dhexmaray oo biyo la'aan ma jirto midna waxay ahayd muuskii Soomaaliya ba adduunkii harqiyay odagu wuxuu yiri ma sha Allah barakallah marka wadankii ka imi anigu soo dhintay adduunkii khayr baa ka dhacay waa bilcaks buu yiri waxa ka jiraan muuska Soomaaliya waa maqlaa laakiin meel uu yaal ma arag taas waxa way madaxweynuhu mashaariicda waa noo sheegay laakiin ma ana arag mashaariicda uu ka hor akhriyay baarlamaanka anagu ma ana arag salaan kadib intii hore oo odayaashu yiraahdeen ku noqon maayo marka hore waxaan ilaahay baa mahad leh marka labaad waxaan u mahad celinayaa nimankii baarlamaanka oo loo idmaday Puntland oo waajibaadkii ay lahaayeen qaatay oo haddii markay waajibaadkii ay lahaayeen mareen madaxweynihii u adkeysan waaya hal nin oo aan dhamaysan hadalkiisii saddex kelmadood ridda ka booday waa arrin aad looga naxo waa arrin fadeexada waa arrin aan sugeyn waa arrin aan u fadhiin haddii madaxweynaha hadduu saddex kelmadood u adkeysan waayay wadanna see mas'uuliyadiisa u qaadaya isweydiinteeda leedahay tan labaysa baarlamaanka waxaan leeyahay jazaakallahu khayr waxaad gudateen xuquuqdii iyo waajibaadkii aad lahaydeen waxaanuna idinka fadhinaa horey waxa loo oran jiray baarlamaanka lacag baa la siiyaa baarlamaanka waa la kala iibsadaa baarlamaanka habeenkii baa loo gurgurtaa war ha noqonina kuwa dalkoodii iyo dadkoodii iibsaday ee ilaahay haydan ka dhigo kuwa u diriraya dalkoodii iyo dadkoodii iyo diintooda tan labaad waxaan leeyahay Garowe waa magaalo madax waxa lagu doortaa dawladda waxa isugu timaado ummadoo dhan waxay ka dhaxaysaa Puntland oo dhan haddii Garowe Puntland ka dhaxaysa haddii farole intuu kursiga gees kaga soo fadhiisto yiraahdo Garowe wax yaani laga qaadayo sidii wax Garowe laga qaadayo oo magaalada laga qaadanayo kale bay noqonaysaa tan saddexaysa odayaashii iyo nabadoonnadii iyo isimadii oo magaalada jooga ba annaga horey annagoo odayaal oo hadal waxa la yiri nimanka hadlay waa nimankii Suud iyo Garmaal haddii Suud iyo Garmaal Soomaali ku noqon mayno annagu waxaanu nahay waa la yaqaan laakiin waa hadal xuma qadaf aan qaban taasoo aanu ku aamusnayn baa shalay markii xildhibaanadii hadleen magaaladii nus garuumo iyo qoryo qaadatay waxay tir xildhibaanadan leynayna haddii xildhibaanadii lagu leynayo
dastuurkii meesha lagu laynayo waxaan u malaynayaa inayan noqonayn magaalo madax oo dib looga fiirsan doono meel kasta ha loo eegee waxaan u malaynayaa inayan suurtagal ka noqonayn sidaana wax ku hagyahayn kuna wadi kari hayn odayaasha iyo isimada iyo waxgaradka reer Garowe waxaan leeyahay sidaa wax ku bedela gobolka Bari ee Puntland la yiraahdo waxa weeye wuxuu ahaa maamulkii ugu horeeyay oo Soomaaliya laga dhiso maanta ma laha wax dhiig caafimaad ma leh wax barasho ma leh maanta qofkii xanuunsada xamar baa loo caraa Hargeysa loo caraa dhibaatooyin baa ka jira dhibaatooyinkaasna waxa abuuray dadka mas'uuliyiinta baa abuuray waxaan leenahay mucaarad wax ma keento dariiqii baa burburay waa baabay waxa jira 3 tub oo yaala Puntland durdur la yiraahdo buraan la yiraahdo sanadkii waxa ku dhinta 10 qof ku dhinta markii isu geeyay noqoto 21 sano waa 210 qof ku dhinta waxa ka mas'uula kuwii xilka hore u soo qabtay iyo kuwa hadda jooga haya hadeera ugu dambeysay 3 ku dhintay waxa weeye marka waxyaalahaas waa waxyaalo aan Puntland qaban marka waxaan leenahay xildhibaanada halkiina ka wada baan leenahay halkiina ka wada oo halkiina ka miisaan leenahay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh guurtidii gobolka Bari baan la yiraahdaa waxaanu ka xunnahay hooyadii Puntland hooyadii Soomaaliyeed Soomaaliya meeshay ku baxsatay la isugu yimi dekadii iyo laamigii oo maantay midna aanu u shafeec beelay laamigiina go'ay dekadiina go'day sababna ay u ahaayeen mas'uuliintii dalka mas'uulka ka ahayd waxaan u sheegaynaa inta noo hadhay inaanaan u dulqaadanayn inaanaan ka yeelayn inaanaan saxaafad joojinayn inaanaan ka harsanayn inaanaan ka seexanayn inaan u wada taagannahay dhammaan dadkii degganaa gobolka Bari inta aan soo tiriyey waa ku dhannahay 13 beelood baanu nahay oo meesha fadhiya oo isku dana oo aan dan kala lahayn oo laaluush rabin oo lacag rabin oo la kala xadayn barlamaanka waxaan uga mahad celinaynaa siday sharciga u ilaaliyeen wakiil waxay nooga ahaayeen inay la xisaabtamaan madaxweynaha iyo wasiirada iyo inta meesha xukuumadda way balaabeen balow fiican bay ka balaabeen dhammaystirkeedina waa sugaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u mahad celinaynaa marka hore waa ajendaha iyagana ka mid ahayd mahad celin ballaaran aan u jeedinayno golaha baarlamaanka dadaalka fiican iyo isla xisaabtanka ay muujiyeen haddii aan nahay anagu ururka ama haddii aan nahay bulshadii ama dhalinyaradii ama aqoon-yahankii gobolka Bari bayaanaan hore u jeedinay bayaanadii aan u jeedinayna waxaan ku cadaynay odayaasha hiil iyo hooba inaan la garab taagannahay wadoomadii waxgaradka meesha isugu yimid waa in salaamaya bacda salaam hadalka hadii odayaasha iga horeeyay waa intii si fiicnad qaatay iyagana dhameeyay marka koowaad waxaan u mahad celinaynaa baarlamaanka dawladda Puntland oo aan u egmanay inay noo matalaan noona waardiyeeyaan sharcigii lagu heshiiyey dastuurkii dawladda Puntland shalay hawshii ay qabteen aad iyo aad baan ugu maqsuudnay waan u mahad celinaynaa waan qodob dastuuri ah oo waa sharciga iyagu ay meesha ku joogaan hadda koormaan arki jirin baarlamaan la xisaabtama madaxweynuhuna ayuu u qaadan in isaga kaliya lagu xumaynayo waxa weeyaan sharciga uu madaxweynaha ku noqday ayaa iyaguna baarlamaan ku yihiin annaguna aan wixii khabaar iyaga uga sugaynaa taas aad baan baarlamaanka ugu mahad celinaynaa waana soo dhaweynaynaa marka shalay anagu waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaa oo aan uga mahad celinaynaa baarlamaankii sida fiican uga hadlay waana taageeraynaa waxaan leenahay hawsha halka ka sii wada xisaabtankuna yuusan shalay kaliya noqon sidani waa in la soo taagaa baarlamaanka mar labaad lagu soo celiyayo si fiican loola xisaabtama waxyaalihii uu dalka ka geystay dani anaga waxa loo doortay wixii hore u khaldamay oo maamulkii Cabdiweli ka khaldamana inuu saxo wixii isagu hadda loo dhiibana amaanada inuu ilaaliyo loo dhiibtay ma ahayn inuu hadii ilaahay ka kalaba jibaaro dhibaatadii Cabdiweli sameeyay mid toban jibaarkeeda inuu rido hadda dib ugu noqon meeno intuu dhibaato sameeyay oo waxa qora ama ha noqoto marsa ha noqoto ama xabadikad ha noqoto ama ayrabor ha noqoto ama maxjar ha noqoto ama eenaya ha noqoto dhibaatada uu ka sameeyay Puntland waxaanu jecelahay anaguna maadaama aanu shacabkii Puntland nahay waa kala xisaabtamayna baarlamaankii anagu shalay 66 ka shalay doortana inaan kala xisaabtamo xaq weyn qodobka labaad oo rabaa inaan ku daro wixii tahay
dani intuu gobolka bari yimid wuxuu magacaabay wasiir ku-xigeenno iyo agaasimayaal oo wuxuu rabaa inuu qabaa'il ku qanciyo oo uu masiirkii ummadda uu bixiyey oo hantidii maguurtada ahayd uu bixiyey uu ku difaaco haddaba kuma difaacayo cid ay qancinayso iyo cid haddii la raalli haas uga qaadanaysaana ma jirto cid ay qancinaysaana ma jirto mana yeelayno haddii wasiirra la bixiyo iyo haddii wax alla wuxuu haya u keeno annagu ku qanci mayno ilaa hantidii maguurtada ahayd oo hantidii ummadda wadaagtay ummadda Soomaaliyeed wadaagtay ummadda bari wadaagtay ummadda Puntland wadaagtay ilaa la soo celiyo gacantooda lagu soo celiyo oo dawladaha shisheeyo oo gacanta loo gashay ilaa laga soo celiyo annagu midaanu qaadanayno iyo midaanu yeelayno ma waxa weeye waxa la yiraahdo maxaan kuu sheegay maalgashi muxuu yahay maalgashi soo shirkad timaado oo macdaadeedka wadata oo shaqaysa oo shaqo laga helo oo ilaahay idinkiisa ummadda ku nooltuuma war meel habari ka qadaysa ma haynaa habar meel ka qadaysa ilaa baan idinku dhaashay habar meel ka qadaysa ma haysaani Cabdiraxmaan Faroole oo lugta kala bixila gobolka bari waxa laga tusana anu aanan garan karin waxaan leeyahay waxa laga naadinayaa hoolka Muqdisho hoolasha Muqdisho mid ka mid ah shaqadaada inaad aqoonsato bay ku fiican tahay qofkuna hadduusan shaqadiisa aqoon dad shaqadii ku habsaamo wuu dhumaa hoolka laga rabo waa aqalka sare dhowr jeerna waa laga naadiyay liiska waa ka maqantay waxaana ku habsaantay cuqaasha bari iyo inaad hoolka baarlamaanka lugta kala bixi weydo waa inaad aqoonsataa shaqadaada ha ku habsaamin baan leeyahay waxa kan rag waa kii tashada waana la tashanaya waana tashadeen reer bari talawadaag media kala soco wararkii u dambeeyay dibad iyo caalamka ku xidhnow talawadaag media goor kasta iyo goor walba ha moogaan talawadaag media